xiisad colaadeed oo ka qaraxday magaalada Boorame iyo guud ahaanba gobolka Awdal iyo sidoo kale ciidamada militariga Somaliland iyo maleeshiyaadka beesha Samaroon oo qarka u saaran in gebi ahaanba ay isku dhacaan. Waxaan kula wadaagi doonaa muxuu yahay amarka uu soo saaray madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo ay ka caroodeen beesha Samaroon sidoo kalena ay doonayeen inay kula dagaalamaan guud ahaanba ciidamada militariga Somaliland. Waxaan kula wadaagi doonaa tallaabooyinka uu qaaday taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug oo ay si weyn kaga caroodeen jabhadaha waqti xaadirkan ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Awdal iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boorame oo kulamo degdeg ka wada gudaha magaaladaasi. Waxaan kula wadaagi doonaa tallaabooyinkan cusub iyo sidoo kale xiisadahan laga dareemayo guud ahaanba gobolka Awdal iyo beesha Samaroon oo eedan culus u jeedinaysa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale iyo maamulkiisa. qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan haddii uu eebeedmo waxaa qayb ka ah dagaallo culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka waxay ku dhex mareen deegaan lagu magacaabo Wargaadhi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. goobihii lagu dagaalamayaa ku sugan khasaaraha jira iyo sidoo kale qorshaha al-shabaab oo ay ku doonayeen inay u gudbaan deegaano ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe oo laga hortagay. si guud waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay dhaqaaqyada ka jira gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobada kale Soomaalida ka baxsan ayaa daawad doontaan haddii uu eebeedmo waxaa qayb ka ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale hanjabaad culus waxa uu diray dalka Venezuela. waxa uu leeyahay waxaan la wareegaynaa dhammaanba maraakiibta shidaalka qaada ee dalkaasi ka howlgasha. sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ee Amerikaanka ayaa lagu fasaxay jasiiradda Caribbean. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda Venezuela iyo Mareykanka oo gebi ahaanba faraha kasii bixaysa xilli Trump Maduro uu ku tilmaamay inuu yahay doqon dalkiisa la degay. qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordho ayaa daawad doontaan, balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, sidoo kale qayb ka noqo saaxiibada ku xiran TV. waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 10,000 oo subscribe kaliya. safarkeena adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar channelka. mahadsanidin. waa hagaag aynu ku bilowno. sidaan xogaa ku leeyno xiisad colaadeed ayaa waxay ka qaraxday qaybo ka tirsan magaalada Boorame iyo guud ahaanba gobolka Awdal, waxaana xiisadan ay u dhaxaysaa maleeshiyaadka iyo jabhadaha beesha Samaroon iyo sidoo kale ciidamada militariga Somaliland. sidaad intiina badan ka warqabtaan jabhadaha ayaa waxay ku soo badanayaan gobolada galbeedka Somaliland sida gobolada Salal iyo sidoo kale Awdal, waxaana Cabdiraxmaan Ciro uu soo saaray amarro kala duwan oo la doonayay in gebi ahaanba arrimahaasi lagu xakameeyo, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland lagu amray inuu qaado tallaabooyin wax ku ool ah, sidoo kalena gebi ahaanba hubka laga dhigo jabhadaha beesha Samaroon ee ku sugan magaalada Boorame, Baka iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaala buuraha gobolkaasi. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa khatar xooggan waqti xaadirkan waxa uu arkaa jabhadahan hubaysan ee ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka Awdal, waxaana la go'aamiyey in jabhadahan iyo ciidankooda si toos ah lagu beeriyo Somaliland ama gebi ahaanba hubka laga dhigo. qorshaha Somaliland waa laba qorshe oo isbarkan. qorshaha koowaad ayaase ah in beesha Samaroon maadaama iyagu ay ka jilcan yihiin beesha Ciise oo dabada kula jirta Ismaaciil Cumar Geelle iyo wadanka Jabuuti, in bal marka hore beesha Samaroon hubka laga dhigo ayaa la go'aamiyey kadib kulamo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta madaxtooyada. sidoo kalena ay ka qayb galeen inta badan xubnaha golaha wasiirada iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland, taliyaha sirdoonka. waxaana sidoo kale kulamadan ama barnaamijyadan hogaaminayay wasiiru dowlaha madaxtooyada ninka lagu magacaabo Qadar Xiirane, kaas oo la xaqiijiyey hadda in uu fulinayo qorshaha la doonayay in gebi ahaanba hubka looga dhigo jabhadaha beesha Samaroon. laakiin beesha Samaroon arrintaasi way ka caroodeen. durbana waxay bilaabeen kulamo kala duwan oo ka socda magaalada Boorame, waxayna yiraahdeen waan la dagaalami doonaa ciidamada Somaliland haddii ay isku dayaan in dhinaceena ay tallaabo u soo qaadaan. beesha Samaroon waxay ku doodayaan in la doonayo in dhulkooda la boobo waa magaalada Saylace, xafladda iyo xeerka buugga Ciisana halkaasi laga hirgeliyo. waxayna dhaar ku mareen in hubka kaliya ay u wataan sidii dhulkooda ay ugu difaacan lahaayeen haddii la isku dayo in dhinacooda tallaabo loo soo qaadana militariga Somaliland ay la dagaalami doonaan. saraakiishii dhawaan loo magacaabay qaybo ka tirsan galbeedka si gaar ah gobolka Awdal ayaana arrintan fulintooda loo xil saaray, iyadoo uu la xaqiijiyey in taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland haatan uu ku sugan yahay deegaanka lagu magacaabo Jicboor, halkaasi uu ka wada abaabul xooggan. inta badan jabhadaha beesha Samaroon iyagu waxay saaran yihiin buuraha banaanka magaalada Boorame, Baka iyo deegaano kale, waxaana beesha Samaroon hadda ay bilaabeen in jufo kasta oo beesha Samaroon laga rabo hub iyo ciidan in ay ku soo biiriyaan jabhadahan
laakiin walwalka Somaliland ayaa ah in ciidamadan tirada badan ee beelaha Ciise iyo Samaroon hadhow isku rogi karaan jabhada gebiyahanba ka soo horjeeda Somaliland ama la doonayo in lagu afgambiyo waaba ay tahay sababtoo ah in arrimaha galbeedka Somaliland waa kuwa ka guda weyn sida dadku ay u moodayaan oo waxa ku jira dalal shisheeye oo doonaya in gebiyahanba ay afgambiyaan Somaliland dalalkaasina waxaa qayb ka Djibouti Soomaaliya Qatar Turkiga iyo dalal la mid ah kuwaasi oo doonaya inay ka hortagaan arrinta aqoonsiga Somaliland iyo horumarka ay ku tallaabsanayso marba marka ka dambaysa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo qatartan dareensan ayaana hadda qaatay go'aano qaraar iyadoo odayaasha dhaqanka beesha Samaroon durba arrintaas ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah jabhadaha oo warbaahinta la hadlana waxay leeyihiin hubkeena ma dhigeyno oo waan dagaalamaynaa hubkana uma sidana ciidamada Somaliland laakiin hadday isku dayaan in dhinaceena ay soo aadaan waa la dagaalami doonaa dhaqdhaqaaqyadan iska soo horjeeda ee ka soo cusboonaaday gobolka Awdal ayaana waxaa leeyahay waxay noqon karaan kuwa xaaladda faraha ka sii bixiya ama xaaladda gebiyahanba kaga sii dara iyadoo leeyahay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro wuxuu qaatay go'aan qaldan beesha Samaroonna hadda Somaliland kama soo horjeedo ayaan lagu qasbin in ay sameeyaan wixii ay hore u sameeyeen beesha dhulbahante oo ugu dambeyn Somaliland ka soo horjeesatay gebiyahanna ka soo saartay deegaanada galbeed ilaa haatan waxaa jira sidoo kale kulamo kala duwan oo ka socda magaalada Boorame qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal iyaguna way gar dhiganayaan waxay leeyihiin Somaliland waaba ku dulmaneen hadda waxaan diyaar u nahay in tallaabooyin dheeraad ah aan qaadno qodobkan iyo waxyaabaha ku soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaan dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay dagaal qarar oo u dhaxeeya argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka dagaaladan ayaa waxay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo Nuur Dugle oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe al-shabaab ayaana weerarkooda waxay ku bilaabeen gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyadoo oo dagaaladu ay ahaayeen kuwo kulul saacado fara badan ayayna qaateen waxaana jira khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay wararka qaar waxay sheegayaan in militariga Soomaaliya lagala wareegay deegaanka Nuur Dugle laakiin si madax bannaan looma xaqiijin karo waxaana la sheegay in dhowr jeer dagaaladan la isku soo laalaabtay oo la isku riqmay xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu suura gashay ayaa la yiri inay fashiliyaan qorshihii al-shabaab qorshaha ugu weyn al-shabaab waxa waa inay qabsadaan deegaanka lagu magacaabo Wargaadi iyo deegaano kale oo muhiim ah laakiin ciidanka danab ayaa halkaasi ku sugan dagaalka ayayna ciidamada danab durba soo galeen iyaga oo si weyn kaga qayb qaatay dagaaladii ugu dambeeyay ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Nuur Dugle 3 sano iyo 7 bilood ka hor ayaa la xoreeyay 3 sano iyo 4 bilood ka hor raadi ayaa la xoreeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana hore u booqday laakiin hadda al-shabaab karkarada ay soo jabsadeen oo waxay gacanta ku dhigeen dhammaanba deegaano badan oo ka tirsan gobolada Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo qaybo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud tani waxay keentay ayaa la yiri in gebiyahanba xaaladdu ay adkaato waxayna kooxdu ka faa'iideysanayaan marxaladda kala guurka ah iyo ishaashashada siyaasiyiinta Soomaaliyeed ilaa haatan ma muuqato tallaabooyin militariga Soomaaliya ay qaadi karaan kuwaasi oo la doonayo in lagu joojiyo kooxdan doonaysa inay soo gaarto ilaa iyo caasimadda qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa weli naga daawanaysa haddii aad channelka subscribe inoo saarin fadlan subscribe inoo saar oo waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 10,000 oo subscribe ugu dambeyn qodobada caalamiga aynu galeynaa madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa hanjabaadii ugu dambeysay u diray Nicolas Maduro madaxweynaha waddanka Venezuela xilli Ameerikaanku ay sii wadaan weerarada ay ku qaadayaan doomaha shidaalka qaada iyo sidoo kale beegsiga ay ku hayaan kooxaha lagu sheegay inay yihiin burcad daraagiska ka ganacsada kuwaasi oo Mareykanka si sharci darro ku soo geliya madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa waxa uu sheegay in Maduro uu yahay doqon dalkiisa la degay wuxuuna xaqiijiyay in Mareykanku uusan ka baaqsan doonin ama lama horaan aysan noqon doonin weerar lagu qaado dalka Venezuela Maduro oo dhawaan warbaahinta la hadlayay wuxuu yiri dalkayga ayaan ku dhimanayaa Mareykankana halkan qabriye ayaan uga diyaarinay Venezuela iyo sidoo kale Mareykanka waxyaabaha ugu badan ay isku hayaan waxay tahay ayaa la yiri sidii Trump uu gebiyahanba ula wareegi lahaa kheyraadka dabiiciga iyadoo dalka Venezuela uu yahay dalka saddexa ama dalka labaad ay raadi ee haysta gaaska dabiiciga ah ama keedka ugu badan ee kheyraadka dabiiciga ee caalamka oo idil laakiin waa dal faqri ah dhibaatooyin xooggan ay ka jiraan nidaamyo kaligitalisiyan ay soo mareen waxaana haatan uu wajahayaa culays kaga imaanaya dhinaca madaxweyne Trump waxaa jiray wadahadallo ay waday dowladda waddanka Qatar oo la doonayay in dagaalka Mareykanka iyo Venezuela lagu baajiyo laakiin ilaa haatan Trump waxa uu muuqdaa in uu doonayo hanjabaadan inuu wax ku dhacsado gudaha intaas ay ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka ilaa dhamaadka hadii aad soo gaartay waxaan ku xusuusinayaa
inaad channelka subscribe inoo saarto qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran xogta TV nabadgelyo.